askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in gawaari ay la socdeen dad rayid ah oo rasaas ku furay taasi waxay dhalisay inay ku dhaawacmaan saddex dhalinyaro ah oo arday ah isla markaana wax ka baranayay mid ka mid ah dugsiyada ku yaala magaalada Muqdisho saddexdaasi arday ee ku dhaawacantay rasaasta la sheegay askariga inuu tuuray ayaa dhamaantood waxay ahaayeen walaalo sida uu ku soo waramayo wariyaha RTN ee Muqdisho Haajir Cabdulqaadir Nuur Safiya Daahir, Hodan Daahir iyo Zakariya Daahir waa saddex arday oo walaalo ah waxa ay saarnaayeen bas si ay ugu qayb galaan imtixaan ugu socday dugsigooda oo lagu magacaabo Anwar balse askari ka tirsan ciidanka booliska ayaa rasaas ku furay gaarigan oo mariyay kontarool ciidamada ay ku baaraan gaadiidka ku taala degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir saddexda arday ee walaalaha ah ayaa ku dhaawacmay rasaasta uu riday askariga waxaana loo qaaday isbitaal Madiina ee degmada Wadajir goobjoogayaal ayaa sheegay in askarigii falkaas geystay uu goobta ka baxsaday mana jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka aabaha dhalay caruurtan oo murugo iyo urku taalo ku beertay dhacdadan ayaa warbaahinta la hadlay Daahir Abdurrahman saaka caruurtu ku waaga bari sidii caadigeed ardayda waxay u soo aadeen fasaladoodii soo aadeen waxayna soo raacaan aan degana xooshan deganahay ilmihi bas ay soo raacad baska iskoolka agtiisa kaga degan baska markay soo raaceen tabakaamado markay marayaan askarta kuwa laajada qaata oo meesha jooga isgooska baawarka uu soo dhaaf gaariga markay xoolo lacag waxbay ka qaataan oo maleynaa kulli aan ma aqaan baawarka markuu soo dhaaf marka askartii markay waa xabadeen baawarka markay xabadeen marka gawar iyo wiil kale waa dhaawacmeen gabarna baawarkii dhawarka ay ka buudi baawarka dhexdiisa ka buudi wiilna sidoo kale isna mataqaan baawarka jilibka wax ka gaareen intaas saasi wax u dhacay ma sheegi karaan markuu dhibka dhacayaan soo baxay isbitaalka soo aaday waxaan ku ogaanay dadkii ay soo wacay gabdhiga dadka dhaawac dad islaameed oo jidka maraya gabdhaha soo qaado isbitaalka u soo qaado gabdhiga markii soo wacay adeer gabdhaha dhaawac waay isbitaal Madiina u qaadnay naga dhow imaam mid dhabarka ugu dal hadda mid dhabarka wax ka gaareen midna xabadaha ku jiro mid horta waa laga soo bixiyay isbitaal Madiina midna waa dhex taala marka hadda iskaana la saaray iskaan shaafiica lakin iskaana la saaray dadkan ka war sugayna hadda kulay inay qalin tahay inay sida marka yeela isaga yaqaan marka jawaabtan sugayna dhacdooyinkan waa kuwa ku soo noqnoqday magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidamada dawladda ayaa iyagoo ka fiirsan gaadiidka dadka rayidka saaran rasaas ku fura waxaana ugu dambeysay markii askari ka tirsan dawladda uu dil bareer ah u geystay wiil dhalinyaro ah oo bajaaj ku waday haweeney xaamile ahayd si uu goob caafimaad u geeyo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabsida ayaa tan iyo markii dilkan ay ku soo noqnoqdeen caasimadda ka soo hormuuqda askari dawladda ka tirsan oo wiil bajala ah naftii ku dhaafiyay isgoyska Tarbuunka ciidamada ku sugan baraha gaadiidka lagu baaro ayaa maxkamadda la horgeeyay si ay u dheystaan dacwadaha taas oo loola jeeday in ay cashar ka qaataan in aysan sahlaneyn in qof shacab ah la dilo Haajir Cabdulqaadir RTN TV Muqdisho